بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamij ku saabsan qalbiga, ruuxda iyo waqtiga. barnaamijkan ayaa wuxuu la xiriiraa su-aashaas oo odhanaysa qalbiga iyo ruuxda iyo waqtiga saameyn ma ku yeelan karaan deegaanka kugu xeeran. su-aal labaad ayaa jirta laakiin gadaal ayaan kasoo gudbin doonaa. inta aadan ka jawaabin marka su-aashan, waa maxay qalbigu? qalbigu waa dareemaha midka ugu weyn ee biniaadamka uu leeyahay, kaasoo la xiriira ruuxaaniyada iyo abuurista dhanka ay u janjeedho soo jiidashana leh, kaasoo saameyn toosa iyo saameyn dadban iyo mid la taaban karo iyo mid aan la taaban karin intaba samayn kara. isaguna uu leeyahay awooddaas aan la arki karin lana taaban karin, waxaana farsamo ahaan loogu bedeli karin. macnaha sida xubinka xanuunaysa oo kaleeto oo daawo loo qoray oo aad liqaysid daawadaas uusan ahayn. tacriifkaas marka aan ku qeexna, dabcan tacriifyo fara badan baa jira oo kaleeto lagu qeexi karo, laakiin waa midka aan anigu hadda jeclaystay inaan soo qaato. marka waa maxay dareemahaasi? dareenka u weyn oo dareemi karo, dareenka ugu weyn uu leeyahay kasoo qaad. dareenka ugu weyn uu leeyahay waa dareenka jacaylka. wuxuu leeyahay dareenka jacaylka, dareenka nacaybka, dareenka emotionka ama qiirada, dareenka murugada, dareenka farxadda, dareemo fara badan buu leeyahay. laakiin dareenka ugu weyn waa dareenka jacaylka. dareenka jacaylku wuxuu la xiriiraa, dareenka jacaylku wuxuu kasoo bilowdaa xaqiiqo. xaqiiqadaasi hadday tahay midda maskaxiyan ahaan aad iskaga dhaadhicisay oo kaleeto, oo laga yaabo sheekooyinka waagi hore ciyaaladu ka sheekaysan jireen ama lagu xuuxin jiray carruurta kaleeto, cawsiga biyo ku nool iyo wax noocaas oo kaleeto inay jiraan, iyo dareen dhab ahaan xaqiiqo u ah. markaas waxaan u laabanaynaa hal tusaale yar oo ku tusaya jacaylka iyo dareenka ugu weyn inuu yahay. tusaalahaasna waxaa weeyaan runta inuu kasoo bilowdo. horta runtu kasoo bilowdaa, runta marka kasoo bilowdana aaminaad baa kusoo xigta, aaminaadda kadibna jacayl, jacaylkaasoo sababi kara nacayb ku salaysan jacaylkii hore. mar labaatan kusoo celiya waxaa weeyaan inuu kasoo bilowdo dhab ahaanta, run ahaan ama sax ahaan ama xaq ahaan, kadibna janjir kale uu gaaro oo la yidhahdo aaminaad. aaminaaddu kadib isu beddelo jacayl, jacaylkaasina uu noqdo mid soo saara nacayb ku salaysan aaminaaddii iyo jacaylkii hore. waa intaas. laakiin nacaybku meel cidlaa kama bilowdo. nacaybku keligiisa run iyo xaq iyo waxaa kama soo bilowdo. nacaybku wax kasoo bilowdaa jacaylkaas lidkiisa, saasuu kasoo bilowda. marka tusaale yar baan kasoo qaadanaa kitaabka iyo xadiista nabigeena alayhi salatu wasalaam. tusaalaha ugu weyne soo qaadanaa nabigeena alayhi salatu wasalaam, ina asdaqa alxadiisi kitaabullah. runta ugu wanaagsan inay kitaabka ilaahay tahay. markaad aad maqashay runtaas ayaad gaadhay heer aaminaad ah. heerkaasna waxa uu ku suurtageliyay jacayl aad jeclaatay ilaahay, malaa'igtiisa, ambiyadiisa, kitaabadiisa, qadarka, waxaasoo dhan inaad aamintay oo rumaysay. kadibna intii jacayl ku saabsanayd ee lagaaga baahnaa inaad jeclaatayna aad jeclaatay, intii kasoo horjeedayna aad qolid noqotay oo aad neecbaatay. taas ayaa marka jacaylku dareenka ugu weyn u yahay soo saarka qalbiga, waa isla garanay. marka see saameyn ugu yeelan karaa? saameyn waxaa ugu yeelan karaa horta waa maxay deegaanka kugu xeeran waxa ka jira. kasoo qaad Soomaaliya qofka jooga, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo kaleeto, waxaa ka jira amni xumo, dad la dilay, dad la qarxiyey, hooyooyin silacsan, agoomo, dad rafaaday, meelo burburay, wadooyinka xun, musuqmaasuq, waxyaalo fara badan. halka ugu weyn marka aad raadinaysaa waxaa uu noqonayaa si aad u heshid saameyn deegaanka dadban iyo toos ahaan la taaban karo iyo aan la taaban karin, in aad caqabadahaas mid ka mida aad u noqotid hal, taasoo uu suurtagal kaaga dhigayo waqtigu. waqtiguna waayo waa ilaahay sifaadkiisa oo ah in ilaahay adiga kuu sahlo inaad saameyntaas yeelatid. marka haddii aad wax ka bedeshay caqabadda amniga, dadka deegaankaas agtooda waxaad ka noqonaysaa qof aad ay u jecel yihiin, kadibna aan xitaa xumaataysa haddii la sheego xitaa la qofkaas waa qof xun, ma maqlayaan dadkaas. haddii la yidhahdo waa sidan, ma maqlayaan. keliya waxay maqlayaan ammaanta, waxay jeclaanayaan inay kuu soo dhawaadaan, sidaad noqotay oo kaleeto noqdaan, heerkaad gaadhay oo kale gaaraan. encouragement aad la bixinayo oo kaleeto, qofkaasi waxay ugu jecel yihiin iyadoo ay joogaan xitaa dadka ugu professorsan. hadduusan qofkaasi qof professor ama cilmi xitaa lahayn, waxay jecel yihiin hal mar inuu yidhahdo encouragementigaas waa idin siiyey ama dhiirigelintaas aan idin siiyey si aad heerka u gaadhaan. kaasi waa deegaan. laakiin haddii aad joogto deegaan aan ahayn deegaanka
Soomaali ama deegaan muslim haddaan joogtid aan ahayn deegaan muslim ama deegaanada aan muslimka ahayn sida wadamada kaleeto kadibna aad xal u noqotay waxa ay dadkaasi rabeen inay xal u raadiyaan oo kaleeto haddii ay tahay inaad waddo u dhistay lacag siisay dhibaatooyin fara badan oo ka jiray xal u yeeshay ama aad ciyaar uga qayb gashay oo koob u qaaday oo meel aysan gaarin gaarsiisay kadibna dadka ay ku jeclaadaan marka xagga kaleeto ayay markaa isu soo rogayaan oo waxay noqonaysaa inaan wax kasta oo xumaataa oo lagaaga sheegay ama xitaa waxaad jeceshahay oo kasta inay iyaguna kula jeclaadaan haddaysan biisa aysan jeclaan jirin marka ay arkeen ninkaasi iyo meesha uu gaarsiiyey sharafta deegaankooda iyo dadnimadooda in ay iyaguna kula jeclaadeen biisihii ay iyagu marka hore necbaayeen saas marka waxay arrintaasi ay su-aal ka dhalan kartaa jirta marka sideed looga faa'iidaysan karaa marka oo yaa ka faa'iidaysanaya dadka raba inay dacwadda diinta faafiyaan oo kaleeto waxay uga faa'iidaysan karaan waa fursad way ka faa'iidaysan karaan dabcan waxaad uga faa'iidaysan kartaa inaad soo bandhigtid markastoo aad hawl ku guulaysatid waxa diintaadu ay leedahay oo kaleeto markasta oo aad su-aal ugu weydiiyo kaleeto aad tiri alxamdulillahi rabbi alcaalamiin bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu oo kaleeto aad ku bilowdid maasha allah oo kaleeto aad tiraahid si ay dhaqankaasi si tartiib tartiiba ugu qaataan taasina waxay noqonaysaa soo jiidashada deegaan ahaan iyo sida raadar ahaan qofku u soo jiidanayo qalbigiisa iyo ruuxani ahaan marka waxaad arkaysaa ciyaalo yaryar oo ku heesaya magac qof muslima iyagoo aada u jecel ruuxantii taasina waxay ka dhigan tahay iyo waan muslim ahayn oo deegaanka joogaana deegaan gaala yahay in soo jiidashada ruuxani ahaan uu ku guulaystay qof marka saas ayaan mawduucan ugu talagalay inaan soo gudbiyo waa laga yaabaa in wax ilaaway laakiin waad naasintiin wixii aan saxnayna ilaahay naga ajar siiyo waxaan khaladnay ilaahay dembigeyga iyo dembigeeda dadka muslimiinta iyo waalidkay baa dhaaf assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Mohammed Salah, a gift from Allah. He came from Roma to Liverpool. He's always scoring, it's almost boring. So please don't take Mohammed away. Mohammed Salah, a gift from Allah. He came from Roma to Liverpool. He's always scoring, he's almost boring. So please don't take Mohammed away. This nation up, do we believe in this team?